kadib dhacdadii murugada lahayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho isla markaasina lagu dilay odaygii 42 sano jirka ahaa isla markaasina wiilkiisii guursaday gabar kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee beelaha foorka loo yaqaano ayaa waxa arintaasi ka hadlay gabadhii la guursaday waa dhacdo murugo leh oo la yaab leh bal gabadha oo arintaasi ka hadlaysa nala daawada Ruqiya Cabdullaahi Maxamed waxa ay go'aansatay inay la noolaato Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah wiilka ay nolosheeda u doortay waxana ay sheegtay in jacaylka uu ka weyn yahay qabiilka Soomaalida ayna dardaaran ku tiri qofka bilaadanka duu qof jecel yahay qabiilna meeshta qabiil dhan wali qabiil muqiimeyn maan يا طعم بدين أنا قفك بالآدم كذا جعلت قبيل كيسمه ويدينا. maxaa soo jeedinay Soomaalida idin daawanaysa maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel maxaa talo u jeedinay qabiil kina iska dhaafan qabiil waa bal dhamaad ma aan qabiil meesha intaale dadka wara ku dhaqan jirin madaxaysan kaan waarid qabiil kuma cadeeyaan dad la isku timaamana dad la dhiig leen isku daayaan qabiil waxa taraamana qofka bilaadanka da sidoo u jeceshaan qabiil dhan weydiinaysa war hoy dunida yaan lagu kibrin nabad halo daayo Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah wiilka sheekadani ay ka bilaabatay ahaana wiilkii ay Ruqiya Cabdullaahi Maxamed ka dooratay ragga sidoo kalena ah wiilkii uu adeerka u ahaa marxuumka geeriyooday ee u gargaarayay jacaylkooda ayaa sharaxaya sida jacaylkooda uu ku bilowday wixii ay isla soo mareen iyo miraha ka dhashay jacaylkooda laba sano wada socnaa gabarta walaasheeda ah kulay hawarteeda hawad wasal deganahay xaaladeen ma ka warhay jiric ala wada yahay laakiin dhanka diinta bilaadanka oo waa isku hal muslimaan ina dhaad gaal waay xaraan u iyahay gabarteeda ma ku xarmo jireer waaye ee waaye xaraan waaye marka ma bi ugu xarmato gabarteeda ma ku xarmato marka aniga mana qabataa ina qofka bilaadanka muslimka in saas loo sidoo kale waxa arintaasi ka hadlay qoyska marxuumkii la dilay oo sheegay in ay aad iyo aad uga xun yihiin wixii dhacayna ay tahay wax ka baxsan diinta islaamka isla markaasina loo adkeysan karin dhacdooyinka ay ku sameeyeen dadkaasi shanay ayaan adiga weelka inta lagu soo weeraray warna lagu mudi faasa lagu dhiftaadane oo dhacay soo dhacay oo tacbaan ah basiina ku shubeen way gubeen oo dhintay markoo dhintay weel ay si garaacay qab aaway dadka xaafada joogay aaway marka waxas dhacayaan dad ma jooga xaafad dibada weelisho inta ka shaqeynaa asaga la shaqeynaa taa ma joogin weelka gabadha qabo aabihiisa ee habartii maxkamadda laga wacay shalay maxkamadii ay joona lisku haysta ameedkana dhaca xagga la geeyay bas Allah wacalini gudbiya idinka intii mid laba gabdhood ay helaan ay qabsadaan wiilasha waa kala ordaan aan wiilka cidna say ugu fiicnaa ninka gacanta ii waayo ahay bas ninka cid u roonayo ahaa bas si gaar u yahay ilmo badan waa ka tagay waxa uu dunidan uga tagay 12 caruur oo ay ugu yartahay gabar 3 bilood jirta iyo laba xaas waxaana sharaxaysa qaabka ay wax u dhaceen Saciida Aways Xaaji oo kamid ah xaasaskiisa isla markaasina ahayd bahda weyn ee marxuumka mootan gabadhii wiilka markii la saraacsiiyay waxay tiri iima ahaatay tiri abgaal iyo jareer ay heshiiyay mana ii noqoto war walaal islaam leeyahay ummadan ilaaha abuurtay islaamka oo dhan way isguursadaan maayay tiri jareer haran oo naga yahay ma guursano waa gabadha hooyadeed habarta 3 birmiya 2 biriye xorneed dooda way socotay shalay maxkamad in lagu soo kala baxo gabadhina waa bala keenabo yacni arinta la xaliyo markay raggeena maxkamad jiraan ay ogaadeen guriga dad ay joogeen Axmed kaligiisa meeshan ku shaqeynayay Axmedkii banaanka ugu yimideen ay ku dileen la xiro waxaad sharaxdaa bal qaabka diliinka u dhacay Allah si xun ay u dileen dil aan sheegi karo ama afkeyga soo mari karo ma ahan noloshay ku gubeen iska dhaafay islaam qof ah yuhuudka xataa taas looma dilo see yeeleen qofta isku kordamisa anigoo ahaa xaaskiisa weena ahay
si xun ay u dileen axmed way dandareysteen way dileen allah miskiino ah weligiis dad ma dulminin hooyo aab dadka waxaa dadweynaha waa la yaqaana caalamka oo dhan laga ogyahay dadka arabtiina weydiiya banaanka baxa qofka arabtiin wareysta walaalayaal waa idin bariya iigu duceeya ninkaas dadka dilana ilaaha ka sabaabina insha allah wax kaloo sheegi kar ma laha qaar ka mid a carruurtii uu ka geeriyooday marxuum axmed mukhtaar saalax ayaan kala sheekaystay dareenka ay ku reebtay geerida aabbahood iyo sidii ay wax u arkeen aabbe waxaa makalwaaldili waxaa loo dhuft baangada iyo waxaa loo waxeeyey imindigo oo geedka sun leh ay baarka geliyeen adiga kaali soo dhow magacaa cabdixafiid iyo waran balo maxaa shal dhacay aabbe iskaliisa aan ku shaqeeyay dhalinyaro kale laba u joogtay waa ka tagtay iskaliisa loo imaaday adeerkii waa maqnay iskaliisa loo soo joogay loo imaaday in lagugu yaso qabiil aad ka dhalatay wax weyn kama aha Soomaaliya waase dhaqan laga soo minguuriyay juhulo aan diinta islaamka haysan xilliyadii adoonsiga uu ka jiray dunidan Soomaalida qaar waxaa ku dambeeya dhaqanka haybsooca guurka oo reerka gabadha ku kalifa inay u diidaan gabadhooda ragga geeya iyaga oo ka cararaya inay in ku noqoto hadhow su'aal ku adag ka jawaabisteeda qof walba oo mas'uul ah kuna saabsan haybsooca guurka ayaan hordhigay xildhibaan cabdifitaax oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aniga waxaad ka mid tahay xildhibaanada aniga igu matala baarlamaanka Soomaaliya aniga hadda kula hadlay marka Soomaalida xildhibaanada baarlamaanka hadda ka jira xildhibaan walba waxa uu ku matalaa beelaha ka jira Soomaaliya aniga adaa igu matala haddii aan maanta ku dhaho madaxweynaha gabadhiisa waa Farmaajo ama ra'iisul wasaare gabadhiisa ayaan isfahanay oo inaan isguursanaan isku fahanay ma kula tahay inaad ii dooni lahayd mase kula tahay inay siin lahayn ayaga horta waa mahadsantahay shaashaale guurka sidaan kuu sheega waa isfahan u dhaxeeya labada qof inay raadi isaga noqdaan at-taraadi waa shardi ka mid ah asaaska isguursiga waxyaabaha kale horaan kaga hadlo diinta kuma xusna waalidka maanta Farmaajo hadaad ka doonatay hadaad khayr ka doonatay ayaga waxa u banaan inay ka fiiriyaan ilaan madaxdii dalka waaye inay sharciga ilaaliyaan loo baahan inay ka fiiriyaan sharciga iyo diinta waxay ka qabto shaashaal haday ku soo baxdo inuu dilaayahay mooriyaan yahay inuu fidno wada yahay inuu balwad la yahay inuusan mas'uuliyad qaadi karinna xaq waxay u leeyihiin inay yiraahdaan gabadheena bohol kuma toori karno laakiin intaasi waxaan ahayn haday ka hor yimaadaan oo automatically ay yiraahdaan shaashaale waa beesha jareer weyne ay yiraahdaan taas waxay tahay hadee waxaan ku wada joogno oo sharci ah ma jirto sharci nabada aan wada ilaalinayno ma jirto nin walba waxa waaye dhankiisu waxa waaye ka daranaya marka aniga waa ku dooni lahaa jawaabta laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in wada hortaala aniga aadaba markaan u doonano dhacdadan ayaa noqotay dhacdo ugub ku ah Soomaaliya waana markii ugu horeysay qof nool la gubo